halkani waa BBC oo aad ka dhageysataan mawjadaha gaagaaban efemada magaalooyinka qaar iyo barteena internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal idilhaantiinba meelba waa joogtaan waa duhurnimo Arbaca oo taariikhdu ku beegan tahay 13 bisha Sebtembar. qodobada barnaamijka duhurnimo aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah magaalada Muqdisho ay ka socoto dood baarlamaanka Soomaaliya ay ka yeelanayaan go'aankii dowladda federaalka ay ku dhiibtay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi oo sheegtay inaysan ka qayb gali doonin shirka golaha guud ee qaramada midoobay. xisbiyada siyaasadeed ee ugu tunka weyn Soomaaliland waxay ku dhawaaqeen barnaamijyadooda siyaasadeed. waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan dhalinyarada magaalada Muqdisho kaliya ka soo codsato buugaagta qortay in lagu daro jadwalka sanadkan waxay ahaayeen 89 laba sano ka hor waxay ahaayeen 11. وقبنقابيها بندقة بوغاكتا مقدشة ويناقو ورمي واحد بندقة بوغاكتا سنة كاني وكاقا دوان يهي كوي هوري يو طبعا عياريه واتكو مغلي دونتان توبرها كوحدة مانشستر يونايتد وانكو قناع سنين قوشي كوحدي سكاكا دي باسيلز. qodobbo kale oo Soomaalida caalamka ku saabsan ay ku maqli doontaan barnaamijkan uu soo saaray Faarax Lamaane balse marka hore waxaynu ku hormarinaynaa warkii dunida iyo Ciise Maatrid gudoomiyaha guddiga Yurub Jean-Claude Juncker ayaa soo bandhigay qorshe ku aadan sida loo heli lahaa midowga Yurub oo muujiya midnaan iyo isdhexgal inta ka badan marka ay Britain ka baxdo midowga Yurub. waxa uu sheegay in codbixiyaasha Britain ay go'aankooda ku aadan ka bixitaanka Britain ka shalayni doonaan. maruu khudbadii sanadlaha ahayd ka jeedinaya baarlamaanka midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay in shir aayaha Yurub looga hadlayo ay qaban doonaan maalin kadib markii ay Britain ay ka baxdo midowga Yurub. Le 29 mars 2019 29 March sanadka 2019 Ingiriisku gabi ahaanba uu ka bixi doonaa midowga Yurub. waxayse noqon doontaa maalin murugo iyo dhibaato leh. waa dhacdo aan mar kasta ka murugoon doono, Ingiriiskuna ka qoomamayn doono. sidaas oo ay tahay waa inaan ixtiraamnaa go'aanka dadka Ingiriiska, laakiin horaan u socon doonaa, waayo ka bixidda Ingiriisku ma aha dhammaadkii midowga, mana aha wax halis gelin kara mustaqbalka Yurub. Parce que le Brexit n'est pas tout, parce que le Brexit ce n'est pas le futur de l'Europe. hogaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa ka baaqanaysa shirka golaha loo dhaniyay qaramada midoobay ee toddobaadka soo socda dhacaya, iyadoo inay sare u sii kacayso dhaleecaynta loogu jeedinayo siday u maareysay dhibaatada Rohingya ka dhalatay. dad lagu qiyaasay 370,000 ruux oo ka mid ah muslimiinta Rohingya ayaa u tallaabay xadka dalka Bangladesh tan iyo markii ay bishii hore sare u sii kaceen rabshadaha ka jira gobolka Rakhine ee dalka Myanmar. Aung San Suu Kyi ayaa wajahayso eedeymo kaga yimid taageerayaasheeda reer galbeedka kuwaasoo salka ku haya inaysan si weyn uga hadlin rabshadaha dalkaasi hadda ka socdo. xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka New Zealand oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Shiinaha ayaa jawaab ka bixiyay warbixin lagu daabacay mid ka mid ah wargeysyada dalkaasi. wargeyska ayaa su'aal ka keenay in daacad uusan u ahayn dalka uu hadda dhalashadiisa haysto. waxaa soo baxaya eedeymo sheegaya in booliska dalka New Zealand ay baaritaan ku sameynayaan Jian Yang oo ka tirsan xisbiga talada haya. maruu shir jaraa'id ka hadlayay ayaa Mr Yang waxa uu eedeymahaasi ku tilmaamay olole meel ka dhaca. booliska gobolka Hindiya ee Uttar Pradesh ayaa sheegay in rag aan heybtooda la aqaanin ay wajiga acid ugu shubeen haweeney 4 bilood ka hor qori caradii lagu kufsaday, waxaana la sheegay in la weeraray kadib markii ay ka soo laabatay dhageysa maxkamadeed. ugu dambeyntina ciidamada nabadgelyada magaalooyinka Ruushka ayaa heegan sare ku jira maalintii afraad kadib markii dad aan la garanaynin telefoon ay kaga digayaan in bambooyin lagu rakabay goobo magaalooyinka ku yaala, taasina ay keentay in dadka la daadgurayo. saraakiisha ayaa sheegaya in telefoon kasta oo la soo diray aan la dhageysan karin. dadka la daadguraynaya tiradoodana haatan waxay gaadhay 10,000. warkii dunida wanaag intaas aan dibadda kugu celiyo Bashiir. Ciise aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal halkaad kala socotaan warkaasi waa BBC. sidaad maqlayseen dhegeystayaal xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xarunta golaha shacabka kaga doodaya go'aankii ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ka qaadatay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. kulanka sabtidii la soo dhaafay xildhibaanada baarlamaanka ayaa u baaqday kooram la'aan. haddaba waxa laga filaya doodda baarlamaanka ayaan goordhaweyd ka wareystay wariyahayaga magaalada Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan. Bashir waxa socda fadhi ay leeyihiin xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo uga doodayaan divistii dowladda Soomaaliya ay Itoobiya u gacan gelisay sarkaalkii ka tirsanaa jabhadda ONLF Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. maanta kooramka baarlamaanka wuu buuxsamay, gudoomiyaha baarlamaanka ayaana furay. dooduna waxay ahayd dood ku saabsan divistaas Cabdikariim Sheekh Muuse loo dhibay dowladda Itoobiya. waxaa iskortay 52 xildhibaan
si ay arrintaasi uga hadlaan. waxaa hadda socota dooda xildhibaanada mid bay usoo istaagayaan 3 daqiiqo ayaa la siiyey mid kasta ra'yigiisa iyo sida arrintan in lagu maareeyo ay tahay ayuu halkaa ka jeedinaya. marka dood xiiso leh ayaa hadda baarlamaanka ka socota. Bashiir ibraahim, marka xildhibaanada go-aan noocee ayaa la filaya inay ka qaataan arrintani? soo jeedinta ka imaanaysay xildhibaanada ilaa hadda hadlay way ku kala ra'yi duwaydi. qaar waxay lahaayeen waa in go-aankii xukuumadda meesha laga saaraa oo lagu tilmaamaa inuu sharci darro ahaa, halka qaar kale ay dalbanayaan in guddiyo loo saaro arrintan oo baaris dheer ku samaysa dibna uu kusoo celisa baarlamaanka. marka waxaa looga fadhiyaa guddoonka marka ay doodu soo dhamaatay inay iyagu shaaciyaan sida arrintan loo marayo ama lagu maareynayo. marka dooda iska soo horjeeda ayaa halkan socda, natiijadaas waxaan ka sugi doonaa marka doodu soo dhamaato guddoonku sidoo arrintan u maareeyo. ibraahim maxamed aadan, wariyahayga magaalada muqdisho ayuu kaasi goor sii horreysay qadka telefoonka ee magaalada muqdisho igu warramayey. haddaba dhegeystayaasha qodobkaasi kasoo raydhiibtay waxaa ka mid ah maxamed cawil oo jooga magaalada boosaaso. waxau yidhi waan soo dhaweynayaa dooda baarlamaanka ee magaalada muqdisho ee looga arrinsanayo qalbi dhagax. runtii waa in golaha baarlamaanku isku raacaan buu yidhi mowqif midaysan si ay u yaraato kala aragti duwanaanshaha u dhexaysa siyaasiyiinta soomaalida. maxamed axmed bulaalo isna jooga talax waxau yidhi inkastoo khalad ay tahay dhiibitaanka qalbi dhagax wadankana ka dhex abuurtay buu yidhi khalkhal siyaasadeed, haddana waa in si hufan markaasi looga doodaa. markan haddii aan aadno dhanka wadanka Myanmar, qaramada midoobay waxay sheegtay inaysan markaasi adeeg gargaar ku filan ku dhawaad 400 oo markaasi kun oo muslimiinta Rohingya oo u cararay dalka Bangladesh aysan gaarin. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo gabadhan bilada Nobel Peace Prize haysatay loo yaqaan Aung San Suu Kyi ay markaasi sheegtay inaysan ka qayb gali doonin kulanka guud ee golaha guud ee qaramada midoobay. haddaba wararkii ugu dambeeyay arrintan waxaa inoo haya maxamed maxamuud cadde. hogaamiyaha xukuumadda Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa ka baaqanaysa kulanka toddobaadka soo socda ee golaha loo dhan yahay qaramada midoobay kaga doodayo sida xukuumadda waddankaasi ay ula tacaamushay qalalaasaha sii kordhaya ee Rohingyaha. ilaa iyo 370,000 oo muslimiinta laga badan yahay Rohingyaha ayaa ka cararay gobolka Rakhine aadayna Bangladesh ilaa iyo wixii ka dambeeyey colaadii bilaabatay bishii la soo dhaafay. tuulooyin fara badan ayaa dab la suray. mid ka mid ah dadkii goobjoogga ahaa oo ku waayay eheladooda ayaa waxa uu sheegay waxa ay ku dileen qaar badan oo qaraabadayda ah Myanmar, waxaanan halkan la imid 3 ka mid ah qaraabadayda. dad badan ayay ku gowraceen tuulada, waa ay gowraceen waxaana ay ku tuureen badda. qaramada midoobay ayaa ku eedaynaysa xukuumadda Myanmar inay isirsafayn samaynayso. militariga Myanmar ayaa sheegaya inay la dagaalamayaan rag xag jira oo ka tirsan Rohingyaha, waxayna beenaynayaan wararka la xiriira inay bartilmaameed ka dhiganayaan dad rayida. Rohingyaha ayaa intooda badan ah muslimiin laga badan yahay oo ku nool gobol ay Buddhistaha ku badan yihiin Rakhine, waxayna inta badan la kulmaan faqo, waxaana lagu sheegaa inay yihiin sogolooti qaanuunka khilaafsan. Rohingyaha ayaa ku noolaa waddanka Myanmar oo sidoo kale loo yaqaano Burma jiilal fara badan, hase ahaatee waxaa loo diiday inay noqdaan muwaadiniin. maxamed cadde aad bay mahadsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanna waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa kaaga dhegeystayaal, markana haddii aan dib ugu laabanno magaalada Muqdisho, bandhigga buugaagta ee sanadlaha ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. sanadkii 3aad ayay carwadaasi ka dhacaysaa isla magaalada Muqdisho, waxaana sanadkan ka qayb galaya haweenkii ugu badnaa ee buugaag qora. waxaa sidoo kale qayb ka ah buugaag ku qoran afka booranka oo iyana markii ugu horeysay lagu soo bandhigay bandhigga buugaagta ee magaalada Muqdisho. haddaba qabanqaabiyaha bandhiggan ee Maxamed Diini ayaa wariyaha BBC-da Cali Nuur Salaad uga warramay waxa uu bandhiggan markaasi ka dhigan yahay. Cali Nuur walaal wuxuu ka dhigan yahay dhisidda Soomaaliyada cusub iyo Soomaalida cusub. aqal la dhisay, tiirarna ay u yihiin qoraal, dhigaal, akhris, buug, joornaal, cilmi, aqoon. xaqiiqdii waxay ku soo biyashubanaysaa dhisidda Soomaaliyada cusub iyo Soomaalida cusub oon buugaag iyo qoraal iyo akhris ku dhisan insha Allah. ma akhrin iyo buugaag kaliya ku egyahay mise waxaa la socda hawlo kale? maya, akhrinta iyo qoraalka iyo buugaag
buugaagtu waa hooyadii iyo aabbihii laakiinse waxaa ku hoos jira dood cilmiyeedyo muhiim ah cilmi baarista soomaalidu halkuu taagan yahay sidee loo tayan karaa halkeen hiigsan karnaa jaamacadaheenna wanaagga badanoo socda iyo wanaagga badanoo lasoo sameeyey sideen darajo ka sarraysa hadda meesha la joogo ugu tallaabsiin karnaa masaa'il dhowr ah sidee si caafimaadla looga doodi karaa maaya maxaa tiri ma laba luuqadoodbaa ma laba lahjadoodbaa beeralayda iyo xoololaydu dhaqankooda maxay ku kala duwan yihiin soomaaliya maxaa hortaagan aqaafad fikir iyo aqaafad marka laga fakara maxaa hortaagan yani waxaan islahay doodo fara badan oo laga yaabo inay xasaasiyad abuurto meelo kale ayuu carwadu waxa ay siisaa meel si caafimaad loo akademika looga wada doodi karo 2 sano hore ayaa la soo qabtay sanadkan muxuu kaga duwan yahay sanadkan kow waxaan islahay waa ka qurux badannaha dadkuna maasha allah saaka subaxii markay bilaabanaysay waan tirinay 1211 qof ayaa joogay sanadkii la soo dhaafay 1050 qof ayay ahayd sanadkii ka soo horeeyay 800 ayay ahayd marka taas waa talaabaan isleeyahay labo dhalinyarada magaalada muqdisho kaliya ka soo codsato buugaagta qortay in lagu daro jadwalka iyo barnaamijka buugfeerka sanadkan waxay ahaayeen 89 laba sano ka hor waxay ahaayeen 11 sanadka hore waxay ahaayeen 21 taasina waa talaabo labaad saddexaad qorayaashan martaqaano dal iyo dibadda aan ka keenay waxa isugu jira Soomaali iyo ajaanib fara badan sanadkan 4 ajaanib Rwanda qoraa ka yimid 3 Kenya ka timid iyo hal Ingiriiska ka yimid waa 5 qoraayo ajaanibina sanadkan way noo joogaan xoogaa waxaan isleenahay guurguurta sanadkii hore hal ajaanib bas joogay kii ka horreeyna ma aysan joogin iyadoo laftirkeeduna dee in Soomaalida aqoonteeda dad kalena ay arkaan dad kalena aan ka barano iyadana waxaan leeyahay waa tallaabo horumar leh buugaag afbooran ku qoran sanadkan ku cusub maxaad ugu baahateen inaad ku soo dartaan waxaan ugu baahanay muqdisho waa hoyga qowmiyadda Soomaaliyeed waxaan sanadkan martaqaadnay wafdi qorayaal ah oo Kenya gobolka waqooyi bari ee Kenya ka martaqaadnay af Soomaali kuwa ku qoray kuwa af garra ku qoray hal buuga af garra jira waan iloobay kuwa af booran ku qoray iyo kuwa af Ingiriis ku qoray maadaama marka dadkaas aan isku dhownahay mandaqadaas aan ka soo wada martaqaadaynay waxaa nala qurxoonaatay in aan isyeelo magaalo la yiraahdo nin qoraayo jooga Ibrahim Bidu Golicha la yiraahdo oo weliga Soomaaliya arag inaan ku martaqaadno isagana ee dadkaas aan oo wadaaganahay waan soo eegnahay boorant wadadaan waxyaalo badan wadaagay isku deegaana Soomaalida waa saasaan ugu qasabtay in caasimadda Muqdisho ay mar walba hoygii iyo hooyanimadii qowmiyadda Soomaaliyeed aysan ka leexmin bandhigan maadaama uu markii saddexaad maraayo wax akhrintana ay kor u kacday sidaad sheegtayba muxuu ka bedelay habdhaqanka bulshada Soomaalida waxaan isleeyahay horta ayaamaha iyo maalmaha soo socda ee sanadaha soo socda ayaa si cilmiyeysan oo daraasaysan aan isleenahay inaan daraasad ka soo baxno ama dhaqanka guud ee thaqaafada magaalada daahfurada buugaageed ama Muqdisho lagu qabto yani aroosyada kale noqdeen asbuucan buug lagu daahfuro magaalada Muqdisho ma jirto dhaqankaas aan isleeyahay waa mid ka koowaad oo maanta la taaban karo waxa kale iyadoo cilmiyeysan ayaan insha Allah daraasad ka soo saari doonaa kasoo Maxamed Diine oo ah qabanqaabiyaha bandhiga buugaagta ee magaalada Muqdisho oo waramayay wariyaha BBC-da Al Nuur Salaad markana Soomaaliland iyadoo lagu bilow oo kaliya ka dhimantay xilligii loo qabtay in dhacdo doorashada madaxweynenimada jamhuuriyadda iskad ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland ayaa saddexda xisbi ee markaasi halkaasi ka jiray waxay soo bandhigeen barnaamijyadooda siyaasadeed ee doorashada ku galayaan dhanka kale guddiga doorashada ayaa soo gunaanuday diiwaangelinta codbixiyaasha iyo qaybinta kaararka codbixinta wariyaha BBC-da ee Hargeysa Axmed Saciid Ciga ayaa haddaba saddexda xisbi ka wareysay mid walba waxyaabaha cusub ee uu xooga saarayo hadalka waxaa ku horeynaya afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiya Xasan Maxamed Cali oo ka hadlaya barnaamijka siyaasadeed ee xisbigiisa barnaamijku wuxuu ka kooban yahay 7 tir ayuu ka kooban yahay waa amniga arrimaha bulshada dhaqaalaha garsoorka deegaanka iyo isbedelka cimilada waxa sheegteen in aad mudnaanta koowaad siinaysaan xagga amniga iyo difaaca iyo ciidamada dhisida maxay tahay taasi waxa weeyaan Axmed haddii la rabo in horumar la sameeyo waxa ugu muhiimsan marka hore inaad heshid amnigii ku hirgelinayay ama ku saamaxayay inaad dhaqaale ku abuurto inaad deegaanasho ku abuurto inay suurto gasho in waxbarasho la sameeyo in cusbitaalo iyo caafimaad la sameeyo ayaa ugu muhiimsan sidaasaan amniga aanu u saarnay xoogga
kaasi wuxuu ahaa xasan gaafaadhi afhayeenka xisbiga talada haya ee kulmiye ee somalilan bal dhinaca kalena xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed cabdilaahi uurcadde ayaa isagana aan ka waraystay barnaamij siyaasadeedka ay doorashada ku gelayaan xisbigaasi. horta barnaamij siyaasadeedkan xisbiga ku gelayno waa barnaamij aad iyo aad u ballaaran oo aan lagu soo koobi karin waraysi iyo mid iyo laba iyo saddex toon haddaan se soo qaado matalan waxyaabaha xagga dhaqaalaha haddaan ka hadlo ama aan ka hadlo xagga hantida ummadda waxa weeye xisbiga wadani waxalla wixii hanti ummadi ay lahayd si sharci darraa u baxay waanu soo celinayna ummadda sideediina waynugu soo celinayn ciidamada waad ogtiino boqolkiiba 250 baanu ku dhigaynaa guriga waanu dhisaynaa shaqaalaha dowladda ayagana waana soo saarnaa intaanu ku dhigayno waana la iclaamanaa waana qoran tahay runtii waxaan jecel lahay in caafimaadkaanu saarno xoog aad iyo aad u ballaaran iyo waxbarashada dhaqaalahana runtii waxaan jecel lahay sicir bararka maanta dalkii baabi'iyey waxaanu samayn doonaa inaynu ku soo celinno halkeedii. iminkana bal xisbiga mucaaridka ee ucid injineer axmed xirsi ducaale waa gudoomiyaha ololaha heer qaran ee xisbigaasi waxa aan weydiiyey barnaamij siyaasadeedka xisbiga mucaaridka ee ucid. anaga barnaamij siyaasadeedka iyaga qaybta maamul wanaagga dhisid dowlad kooban oo tayale ayaanu ka bilaabaynaa oo aan ka badnay 16 wasiir oo lagu soo xulo aqoon sarreysa iyo qofku experience-ka iyo khibradda uu u leeyahay shaqada aan ku soo xulanaynaa qofku inuu nadiif ka yahay musuqmaasuqa iyo wixii la halmaala iyo inuu yahay qof waaya araga waxaanu samaynaynaa xisbiga ucid waxaanu hirgelinaynaa dhaqaale ku dhisan ama ku salaysan suuqa xorta ah waxaanu samaynaynaa inaanu kor u qaadno wax soo saarka asaasiga waxaanu kobcinaynaa kalluumaysiga khayraadka badda waxaanu kobcinaynaa beeraha waxaanu dhammaan dalka gaarsiin doonaa biyo nadiif inuu dadku helo. codkaasina wuxuu ahaa injineer axmed xirsi ducaale oo xisbiga ucid u qaabilsan ololaha doorashada dhegeystayaal waraysigaasi oo faahfaahsan hadduu alla idmo waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta. markana haddii aan eego wararka ku saabsan isboortiga tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa ku eedeeyay ciyaartoyda United in ay khalkhal galiyeen kulankii kooxdiisa ay la lahayd kooxda Basel ee horyaalka Yurub maadaama weeyay aysan u dheelin qaabkii uu ka faliyay. Mourinho ayaa inta ku darin ciyaartoydiisa aysan u dheelin qaab kalsooni ay ku dheehan tahay. kooxda United ayaa 3-1 kaga adkaatay kooxda Basel waxaana goolasha kooxda United u kala dhaliyay Fellaini, Lukaku iyo Rashford. Waaga dhigeystayaal waxay noo soo socotaa markaasi shirkadda Apple oo soo saartay telefoon casri markaasi ah kuwa ugu dambeeyay balse markana dhanka waddanka Itoobiya ugu yaraan 2 qof ayaa dhimatay in ka badan 600 qofna waa ay barakaceen kadib markii dibadbaxay horle ay ka dhaceen bariga dalka Itoobiya. dadka dibadbaxan dhigaya ayaa ciidamada markaasi ka tirsan booliska dalka Itoobiya ku eedeeyay in ay dilal iyo xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda dadka Oromada ka fuliyeen halkaasi balse dowladda Itoobiya ayaa arrinkaasi ku tilmaamtay isku dhac ka dhashay xadka u dhaxeeya deegaanada Oromada iyo dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya. wariyaha BBC-da Emmanuel Gunza ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray waxaa soo jeedinaysa Faadimo Macalabukar. wararka halkaasi laga helayo ayaa sheegaya in dhowr qof ay ku dhinteen dibadbaxyadii shalay ka dhacay magaalooyinka ku yaala bariga Itoobiya. tiro kale oo dad ayaa la dhaawacay halka dhismooyin dowladdu leedahay iyo gawaari la burburiyay inta ay rabshaduhu socdeen. Oromada oo ah qoomiyadda ugu badan Itoobiya ayaa ku eedeynaysa cutub gaar ah oo ka tirsan booliiska ismaamulka Soomaalida ee ay dariska yihiin inay geystaan dilal iyo xadgudubyo kale oo ka dhana xuquuqda bini'aadamka. isku dhacyadan ayaa soo jiitamayay muddo bilooyin ah balse waxay soo xoogeysteen toddobaadkan. dowladda Itoobiya ayaa sheegaysa in odayaal dhaqameedyada labada dhinac ay kala kaashanaysa xalinta khilaafaadka u dhaxeeya. goobjooge ayaa BBC-da u sheegay in ciidamo milatariga ka tirsan ay haatan ilaalinayaan wadooyinka magaalada ay isku dhacyadu saameeyeen. bishii la soo dhaafay dowladda ayaa ka qaaday gobolka Oromada bandow 10 bilood saarnaa kadib in ka badan 2 sano ay ka socdeen dibadbaxyo looga soo horjeedo dowladda dalkaasi. Faadimo aad bay mahadsantahay dhegeystayaal halkan nagala socotaana waa BBC. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message telefoonka nambarkiisu yahay 4477620090 kadib waxa ay kula tahay BBC Soomaali. waxaa markana wararka ku saabsan teknolojiyadda shirkadda Apple ayaa soo saartay telefoonkii ugu dambeeyay ee markaasi kamida telefoonada ugu casirsan ee caalamka tan la joogo waa telefoonka iPhone X
axmed nagaashe ayaa isha soo maray warbixintaasi oo haatan stuudiyaha igula sugan. axmed haye. bashiirow waxay ku soo beegantay soo bandhigidda telefoonkan cusub ee loo bixiyey iphone x mar kalena la yidhi waxaa la yidhaahdaa iphone 10 sanad guuradii tobnaad ee markii ugu horreysay ay shirkadda apple soo saartay telefoonada iphoneka la yidhaahdo. waa tiknolojiyad cusub oo dunida ku cusub lagu soo bandhigay. horta gebigiisuba waa wada quraarad ama waa wada dhalo. kamaradihiisa waa lasii casriyey oo markii hore markaad isku soo jeedisay selfi keliyaad qaadaysay laakiin selfigii way dhaaftay imiko sawirada qofku shakhsiyaantiis ka qaadi karo. marka adigoo taagan baad sawiro xataa badan qaadi karaysaa aan wejigaaga ku koobnayn. tii kale waa la durkiyey. hadday xitaa madow tahay iyagaa is ilaynaya iftiin saa'ida oo aad moodo in iftiinkii aad u baahnayd ayuu soo saaraya. waxa kaba daran ma laha meeshii suulka la saaraya ma farta lagu taabanaye waad bahalka ku furaysay saasaad u egaysaa mise uu ku garanayaaba. dabeetana uma baahnid bay leeyihin xataa fingerprintka ama wixii uu suulkaaga uu ku garanayey gebigiisuba qofka iyo isaga waxaad moodaa in laysku mataaneeyey. waxaase la yaab leh lacagtiisaan dee la goyn karin. axmed nagaasho waan ku weydiiyey halkaasi adigu ma ku tala jirta inaad soo iibsato telefonkani? warniyo telefonkani waa fiicayay siday u dhigayaan markaad eegto laakiin dee waa xoolo dameer gooya marka malahaado 4 halaad iibsadaa dhaantay. waagagadaad mahadsan tahay. markana baafinta maanta waxaa si wada jira stuudiyaha b b c da ee magaalada nairobi idinkaga soo tabinaya anigoo ah cabdiqaadir yuusuf cali iyo caasho siciid xasan. caasha. mahadsanid cabdiqaadir. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay cumar xuseen axmed oo jooga xerada qaxootiga ee dhadhaab. waxa uu baafinayaa cabdulqaadir xaaji axmed. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan isla kenya 1990. haddaba haddii uuna maqlaya cabdiqaadir xaaji axmed amaba jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cumar xuseen axmed ayadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaasay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab. rufaac xasan cismaan oo jooga marka waxa uu baafinayaa yuusuf rufaac xasan. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka yemen sanadii 2005. haddaba haddii uuna maqlaya yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo rufaac xasan cismaan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaasay ku leedahay marko. cabdi isaaq aadan oo jooga xerada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa axmed isaaq aadan iyo faadimo axmed isaaq. waxa ugu wardambeysay ayagoo ku sugan magaalada wajeer 2012. haddaba haddii ayna maqlayaan amaba jirto cid garanaysa fadlan warkooda ha la gaarsiiyo cabdi isaaq iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaasay ku leedahay magaalada wajeer. axmed faarax yuusuf oo jooga markana waxa uu baafinayaa jacfar axmed faarax. waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada london sanadii 2005. haddaba haddii uuna maqlayo jacfar axmed faarax amaba jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo axmed faarax yuusuf iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacas ay ku leedahay magaalada marko ama telefoonka nambarkiisu yahay eber 2526 eber 61 eber. xuseen cusmaan cali oo jooga xerada qaxootiga ee dhadhaab waxa uu baafinayaa cabdirasaaq cabdulaahi nuur. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka maraykanka 2010. haddaba haddii uuna maqlaya cabdirasaaq amaba jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo xuseen cusmaan cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab. faysal cabdi sheekh xasan oo jooga marka waxa uu baafinayaa faadimo cabdiraxmaan cabdi. waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Zambia sanadii 2013. haddaba haddii ayna maqlayso faadimo cabdiraxmaan cabdi amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo faysal cabdi sheekh xasan iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay marko ama telefoonka nambarkiisu yahay eber 2526 eber 61 cabdisalaam maxamed saalax oo joogo xerada qaxootiga dhadhaab waxa uu baafinayaa axmed cabdi digaale. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Kismaayo 1996. haddaba haddii uuna maqlayo axmed cabdi amaba jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo cabdisalaam maxamed saalax iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab. axmed cabuud cabdalla oo jooga cergaabo waxa uu baafinayaa yuusuf xamuud cabdalla. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada cadan ee dalka yemen sanadii 1997. haddaba haddii uuna maqlayo yuusuf amaba ay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo axmed xamuud cabdalla iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay cergaabo. sacdiyo cabdi cali oo joogto xerada qaxootiga dhadhaab waxay baafinaysaa maxamed kulmiye yare. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan muqdisho 1993. haddaba haddii uuna maqlayo maxamed kulmiye amaba jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo sacdiyo cabdi cali iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bishacaas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee dhadhaab. naaleeye axmed jaamac oo jooga cergaabana waxa uu baafinayaa cabdiweli axmed jaamac. waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka yemen sanadii 2014. haddaba haddii uuna maqlayo cabdiweli axmed jaamac amaba jirto cid garanaysa fadlan warkiisa ha la gaarsiiyo naaleeye axmed jaamac
iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Ceerigaabo. Sacdi Yuusuf Xaaji oo jooga Sablaale waxa uu baafinayaa xamuud yuusuf xaaji waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Yemen 1999 haddaba haddii uu maqlayo xamuud ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Sacdi Yuusuf ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Sablaale. Dahaba Cumar Bukut oo joogta Gaarisana waxa ay baafinaysaa Nastaax Cumar Bukut waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan xerada qaxootiga ee Kaakuma sanadii 2003 haddaba haddii uu maqlayo Nastaax Cumar Bukut ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Dahaba Cumar Bukut iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay magaalada Gaarisa. Ismaan Cabdi Guuleed oo jooga Walaweyn waxa uu baafinayaa Nuur Ismaan Cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Masar 1999 haddaba haddii uu maqlayo Nuur Ismaan ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Ismaan Cabdi iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Walaweyn. Cabdi Maxamed Faarax oo jooga xerada qaxootiga ee Xagardheerana waxa uu baafinayaa dadka kale ah Maxamuud Guuc Faarax iyo Cumar Guuc Faarax waxa ugu wardambeysay iyagoo ku sugan magaalada Muqdisho sanadii 2014 haddaba haddii ay maqlayaan Maxamuud iyo Cumar ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkooda la gaarsiiyo Cabdi Maxamed Faarax iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Xagardheer. Saalax Cabdi Cabdalla oo jooga Afgooy waxa uu baafinayaa Jiilaani Saalax Cabdi waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ingiriiska 2014 haddaba haddii uu maqlayo Jiilaani ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Saalax Cabdi Cabdalla ayadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Afgooy. Khadiija Xuseen Caarif oo joogta xerada qaxootiga ee Xagardheerana waxa ay baafinaysaa Muxyidiin Maxamed Nuur waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 1990 haddaba haddii uu maqlayo Muxyidiin Maxamed Nuur ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Khadiija Xuseen Caarif iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Xagardheer. Famiito Axmed Cabdullaahi oo joogto Qoryooley waxay baafinaysaa Mustafa Yaasiin Axmed waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ruushka 2000 haddaba haddii uu maqlayo Mustafa ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo Famiito Axmed iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Qoryooley. Aadan Xasan Ibraahim oo jooga xerada qaxootiga ee Xagardheerana waxa uu baafinayaa Nuur Aadan Mayow waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Kenya sanadii 2004 haddaba haddii uu maqlayo Nuur Aadan Mayow ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Aadan Xasan Ibraahim iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Xagardheer. Maamito Nuklaar Jiilaani oo joogto Boolmareer waxay baafinaysaa Kaamil Cabdi Maamo waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Hong Kong 2003 haddaba haddii uu maqlayso Kaamil ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo Maamito iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boolmareer. Cabdinaasir Maxamed Sheekh Cali oo jooga xerada qaxootiga ee Xagardheerana waxa uu baafinayaa Maxamed Sheekh Cali Nuur waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 1998 haddaba haddii uu maqlayo Maxamed Sheekh Cali ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Cabdinaasir Maxamed Sheekh Cali iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Xagardheer. Caasho Cabdi Cabdullaahi oo joogto Boolmareer waxay baafinaysaa Cabdiqani Xasan Xuseen waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Tanzania 2013 haddaba haddii uu maqlayo Cabdiqani ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Caaisho Cabdi ayadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Afgooy. Waase Cabbaas Maxamed oo joogta xerada qaxootiga ee Xagardheerana waxa ay baafinaysaa Axmed Nuur Sheekh Cabdirasaaq waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Canada sanadii 2011 haddaba haddii uu maqlayo Cabdinuur Sheekh Cabdirasaaq ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Waase Cabbaas Maxamed iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Xagardheer. Carabi Saciid Raagi oo jooga Baraawe waxa uu baafinayaa Mahad Axmed Guure waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Hindiya 1994 haddaba haddii uu maqlayo Mahad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Carabi Saciid iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Baraawe. Cabdi Guhaad Shukri oo jooga xerada qaxootiga ee Xagardheerana waxa uu baafinayaa Raabaco Axmed Guhaad waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan gudaha dalka Soomaaliya sanadii 1990 haddaba haddii ay maqlayso Raabaco Axmed Guhaad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Cabdi Guhaad Shukri iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay xerada qaxootiga ee Xagardheer. Baafintiina maanta waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir iyo caashe dhegeystayaal markana haddii aan eegno qodobada wararka caalamka ugu door karoon qaramada midoobey ayaa sheegtay in gargaar ku filan uusan gaarin ku dhowaad 400,000 oo ah muslimiinta rohinja uu cararay dalka bangladesh arrintan ayaa imaanaysa iyadoo gabadha haysata ballada nobel ee Aung San Suu Kyi ay sheegtay inaysan ka qayb gali doonin kala fadhiga golaha guud ee qaramada midoobey ee bisha dambe ka dhici doono dalka Mareykanka xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay xarunta golaha shacabka kaga doodayeen go'aankii dowladda Soomaaliya ka qaadatay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax kulankii Sabtidii la soo dhaafay xildhibaanada baarlamaanka ayaa kooramlaan u booqday idaacadii uu soo saaray Faarax Lamana dhageystayaal waa nageynta waxaan idin socodsiinay anigoo Bashiir Maxamed Caate tan 5 galabnimo intaan hawada dib ugu kulmi doono dhamaantiin waad ku mahadsantiin dhageysiga inta ka horeysay waxayna ballanaa bbcsomali.com